kusoo dhaw barnaamijkeeni sirta guusha ganacsiga oo aan ugu talagalnay mar waliba inaad wax uga faa'iideystid aad ku horumarisid ganacsigaaga ama aad ku siyaadisid aqoontaada ganacsiga. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno haddii uu la yiraahdo iibka guuleysta maxaa lagu yaqaan. haddii aad rabtid inaad samaysid iib badan ama iib wanaagsan oo lacag fiican shirkadaadu ay ka hesho ama adigu aad ka heshid maxay tahay waxa kula gudboon inaad samaysid. laba arrin in aad kala qaadid waa muhiim oo si fiican loo kala fahmo. sellingka iyo closingka ama iibinta oo ah warka tirada badan, sharaxaada tirada badan oo laga yaabo qofka macmiilka inuu waxba ka helayn iyo qofka macmiilka in loo sahlo sidii uu u soo gabagabeyn lahaa wada xaajoodkaas dhererka badan kadibna uu value-gi iyo wixii aad haysi u qaadan lahaa aduguna aad sidaas ku heli lahayd lacag ganacsigaagina uu ku guuleysan lahaa. marka firqi u dhaxeeya ayaa jira sellingka iyo closingka. qof kasta oo salesman ah micnaheeda ma aha inuu yahay a good closer ama qof ku fiican inuu soo gunaanudo ama soo afjaro wada xaajoodka iibka si ugu dambeyntii la isku weydaarsado lacagtii iyo value-gi. qaybta marka waxaan rabnaa inaan uga hadlo marka laga hadlayo iibka guuleysta maxaa lagu yaqaanaa. marka ugu horeyso horta inaan fahamtid ayaa waxaan rabaa sellingku waa maxay. sellingku ereyga ku aadan ee aad ku yara fahmi kartid waa bushi qof ah, qof riixaya qof wax raba inuu isaga intuu iska wareejiyo u wareejiyo qof kale. marka waxaa ku jira xoog, waxaa ku jira ka dhaadhicin ziyaada ah, waxaa ku jira qofkii inuu u ekaanayo in uu rabo in wax aan rabno ama aanan rabin labaduba nooci doonan ha aadaan inuu nagu riixo oo saas mar waliba isaga uu wax ku helo. marka waa qof interestkiisa ka fikiraya. qofka salespersonka ama salesmanka ama woman whatever uu yahay wuxuu qofka clientiga u arkayaa inuu yahay qof bushi ah oo riixaya. taa cagsigeeda marka qofka closerka ah xoogiisa ma saarayo in uu ku riixo qofkan waxa uu rabo ama uunan rabin. taa bedelkeeda wuxuu xooga saarayaa inuu value in advance si sameeyo. value in advance inaan fahamno ayaan u baahannahay oo ah qofka macmiilka ah inta uunan transactionku dhicin ama aadan waxba isweydaarsanin waa in uu wax kaa sii faa'iido inta badan si free ah isagoon waxba commitment gelin, lacag kale aadan ka qaadin, wax kale uunan samaynin, document kale iyo inta ii saxiixo dhan aynan jirin, si free ah waa inuu u heli karaa value isagoon waxbo kale bixinin. marka qaybtan waxaa la yidhahdaa value in advance oo ganacsi waliba lagu dabaqi karo. suuragal ma kuu tahay oo ma ka fikiri kartaa in qofka customerka ah uu sii dhadhamiyo haddii si kale loo dhigo waxa aad haysid adigu. tusaale yar aan ku siiyo. inta aadan wax iibinin ka hor shaqo weyn ayaa kuu taalla oo ah afkaaga intaadan kala qaadin inaad soo qabsatid value propositionkaagii muxuu yahay waxa aad rabtid inaad iibisid, qofka customerka muxuu ka helayaa, sideed ugu sheegaysaa, sideed uga dhaadhicinaysaa, erayadeed isticmaalaysaa, muxuu yahay tusaale ahaan meelaha uu ka heli karo kale, si toos inuu kugu yimaadaa ma si digital uu ku heli karaa. waxyaabahaas intaada afka kala furin ka hor waxyaabo loo baahan yahay inaad sii diyaarisid oo diyaar inay noqdaan ka hor intaadan hadlin wey. arrimaha muhiimka marka waxaa ka mid ah value in advancing marka aad rabtid inaad samaysid oo inaad ku xisaabtantid ay tahay. tusaale yar aan ku siiyo koorsooyin ayaad iibinaysaa sida hadda innaga Bravo Group oo kale tusaale ahaan koorsooyin online aan leenahay. koorsooyinkaas waxay xalinayaan problem qofka haysta ama problem haysta shirkadda. waxyaabahan u baahannahay marka waxaa ka mid ah in 5 step ama 6 step ama 7 step ayaa laga yaabaa qofka inuu ka tago from point A to point C ama D ama E inuu tago. wuxuu u baahan yahay stepskii uu mari lahaa. haddii stepskaas aan la qaadno oo barnaamij aan dejino stepskaas qofka marka uu qaado inuu heli doono value X ugu dambeyntii. qaabka aan u market garaynayna muxuu yahay productiga marka. productigaas waxaan u market garaynaynaa in aan qofkan 7 step oo aan si fiican u soo sharaxnay isagii waxaan siinaynaa 1 step oo kamid ah si free ah ama 2 step oo kamid ah ayaan si free ah u siinaynaa si uu dhadhamiyo oo uu si arko
oo value in advance ee qofkan ugu sii noqoto oo mar alla markii uu arko uu yiraahdo oh my gosh haddii freegoodu uu sidan yahay ama waxaanba si free ah ay ula wadaagayaan dadka ka waran programkooda paidka siduu noqonayaa. That's why barnaamijyada ugu badan ama programmiska ugu badan ay u leeyihiin qaybo free ah oo qofka loo soo bandhigo. waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ah cajiibka ah qof baa raba inuu wax ka iibiyo tusaale aan soo qaadano software ayuu rabaa inuu iibiyo uu ku iimaanaya markaas wuxuu ku leeyahay maanta wuxuu ku sharxayaa softwarekiisa faa'iidada uu leeyahay featureska functionalityga howlaha ay qabanayso waxaas 20 daqiiqo ayaa laga yaabaa in arrimahaasi uu ku mashquulsan yahay oo maanta dhan mar uu kula wadaago brochure kala duwan inuu kula wadaago emailo meeshan fiiri ama web demo oo ku sameeyo online wax kugu tuso halkaas ku mashquulsan marka ha u qaadanin in arrinta ay ku eg tahay online courseska ama isbitaalada ama ay ku eg tahay telecom ama finance whatever no waxaa lagu dabaqi karaa any industry haddii bangi aad tahay waxaad ka fikiri kartaa qofkan customerka intuuna wax iga iibsan ka hor maxaan siin karaa muxuu value heli karaa in advance tusaale yar haddii hadda aan ku siiyo ama qaab su'aal aan u dhigo Hormuud waxay leedahay EVC soo ma shirkadda dahabshiilna waxay leedahay Somtel example waxay leedahay e-dahab labaduba transactionada marka aad dirsanaysid ama aad qof wax u diraysid adeega maanta oo dhan aan sameeyno wax lacaga nagama go at least ilaa hadda mid ka waran marka haddii maanta Hormuud ama Somtel ay tiraahdo transactionkan mar alla marka aad qaadaysid waxa ka go'i doona 1,000 shilin oo shilin Soomaaliya ama 2,000 shilin Soomaaliya ayaa every transaction loo goosanaya ma in la diidaa loo badan yahay oo laga hor yimaado la yiraahdo maya dooni mayno mise waxay u badan tahay inta la aamuso kii raba iyo kii kalaba inuu isticmaalo inuu ku qasban yahay maxaa suura geliyaa marka waxaa suura geliyay value in advance oo ah in muddo ah in free aad ku isticmaalaysid aad hore u dhadhamisay aragtay waxa aad ka faa'iideysid walidaalika haddii maanta lagu yiraahdo wax yar bixi wax weyn inaad ku luminaysid ayaad ogtahay haddii aad diidid haddii mid kale lagu sii daro ka waran haddii Hormuud ama Somtel ay yiraahdaan waxa laga goosan doonaa transactionada aad sameynaysid lacag inta la eg laakiin waxaad heli doontaa value kale oo dheeriya kaagii hore haddii mid kale lagu sii daro ka waran then waxaad noqonaysaa qof client forever meesha u joogo sababtoo ah waxa lagu siiyay qiimo fiican marka value in advance in aad iyo aad loogu xisaabtamo oo every institution ama industry kasta ha ku jiro inuu ka fikiro customerkan maxaan rabaa inaan sii siiyo ka hor inta exchange-ga una hal mid oo kale aan ku raaciyo mar waliba ka fikir in customerka ama macmiilka ay tahay inuu helo 10 times more 10 jeer ka badan qiimaha uu adiga ku siinayo haddii $100 uu ku gadanayo koorsadan alaabtan adeegan whatever suuragal ma tahay $1,000 value dan $1,000 suuragal ma tahay in qofkaasi uu dareemo inuu helo just material inaad u siisid oo aad lacag ahaan u siisid ama alaab ahaan u siisid qasab ma aha laakiin awood ma u leedahay qofkan in uu dareemo ama aad dareensiisid adiga waxa uu helayo mar waliba in ay ka badan tahay waxa uu bixinayo haddii yes arinta ay tahay that's it big closer ayaa tahay great closer ayaa tahay qof ku fiican ayaa tahay arrimaha noocaas oo kale ah inaad good closer tahay waxyaabaad ku ogaanayso waxa kamid ah customerku wuxuu ku dhihi doonaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay adeega fiican oo qabatay alaabtaad noo keenteen Allah yabaarik fiikum isagii $200 aad ka qaaday ayaa wuxuu ku leeyahay thank you very much why sababtoo ah wuxuu dareensan yahay value-ga uu ka helay inay ka badan tahay 10 jeer 5 jeer 4 jeer 6 jeer wixii adiga uu ku siiyay marka dhammaanteen aan ku wada xisaabtano in value in advances muhiim u yahay qofkuna ay tahay in uu ka fikiro sideen ganacsigayga ugu dabaqaa wax waliba inaad free ka dhigtid qasab ma aha laakiin qayb ka mid ah waxa qiimaha aad haysid waa in marketingkaagu uu qayb ka noqdaa in value-ga isaga ah si free ah aad ula wadaagi kartid si tartiib ah si customerkaasi aad u hanatid oo aad u iibsatid maskaxdiisii iyo fikirkiisii isagana uu u arko in value uu ka helayo ay mar waliba ka badan tahay waxa adiga uu ku siinayo ha guulaysto ganacsiga mar waliba